بسم الله الرحمن الرحيم. أخيرت كحنا كنال كينا حسن محمود كانال وأضو براتين علمي كصابسن أغونتا كمبيوتر كأي تكنولوجيا دا أي تيجا أيا وي سيدا درتين مانتا وحين كهل لنا 10 عصب أو كصابسن سيدا اللوغوين كالله سمايو سيدا اللوغو بروفيشنال الله سمايو أضو استعماليا أبليكيشن كلا يرادو أدوب إلستريتور inagoo isticmaali doona ayaynu loogooyin samayn doonaa. Intaynan hadaba bilaabin loogooyinka iyo waxyaabahaas aynan casharka bilaabin waxaan doonayaa in yaroo theory oo hordhac u ah loogada inaan hadda markuu aynu ugu horeyn aynu kala qaadano inta kadibna aynu practicalkii aynu galno. Ugu horeyn haddaynu loogadeen aynu ku bilowno casharkeena waxaynu halkan sida arkaysaanba BBT baan ku diyaariyay PowerPoint weeye in yaroo theory aan qaadan doonaa oo ku saabsan concept inaad ka heshaan loogada iyo waxay tahay sidaa darteed waxaan isla eegi doonaa loogada contentiska iyo eegi doonaa contentiska waxaan ku qaadan doonaa definition of logo, types of logo and each example. Inahaasaan ku qaadan doonaa maxay tahay definitionka maxaa lagu qeexi karaa loogada imise nooc bay u qaybsantaa iyo mid kasta tusaalaheeda. Waayo haddaynu inta kaga gudubno aynu gudubno qaybta xigta waxaanu soo horeysiinaynaa ugu horeyn wasta loogada maxaa lagu qeexi karaa logo maxay tahay in badan baad aragtay loogooyin meelaha ku yaala wax conceptiga ama ka haysataan hadaa wax conceptiga ka haysataan commentiga noogu reeba maxaad ku qeexi adiga laftaada maxaad ku qeexi kari lahayd loogada. Okay, maanta haddaba aan doonayaa inaan idinka jahil saaro loogada waxay tahay. Loogada waxa lagu qeexaa is a unique symbol, design or text that represents a brand, company or organization in service as visual identifier, helping people recognize and remember the brand. Why? Loogadu is a unique symbol. Waa sumad khaasa ama waa sumad gaara design ama waa qaab design or text ama waa qoraal that represents taasoo u taagan a brand, company or organization. Yani loogadu waxa weeye loogadu waa sumad gaara oo lagu garanayo company ama organization meel ku yaal ayaa la odhanayaa maxay logo weeye. For example xagga dambe aynu ku arki doonaa loogadu institution kastoo dunida ka jiraay dee wax sumad gaar oo lagu garto leeyahay. For example shirkadaha kambaniyada waaweyn ee caalamka ku yaala sida for example kambaniga la yiraahdo Apple yaa wada garanaysaan loogadiisu waa tan loogu leeyahay. Okay, kambaniga Apple la yiraahdo loogu leeyahay sumad gaar oo uu kaga duwan yahay shirkadaha kale dhigiisa ayuu leeyahay. For example shirkadda Facebook iyaduna loogo gaar oo lagu gartay leedahay. Shirkadda soo saarta biyaha shirkadda soo saarta sharaabka ee la yiraahdo Coca-Cola iyada lafteedu waxay leedahay sumad gaar ah ama loogo u gaar ah oo lagu garto oo ay kaga duwan tahay shirkadaha kale. Shirkadda Google iyaguna loogo gaar ay leeyihiin oo lagu garanayo. Sidaa darteed shirkastoo dunida ka jirtaaba waxay leedahay sumad gaar ah oo lagu garanayo. Sidaa darteed wax sumad gaar ah halkaa waxaad ka dareemi kartaa wax leh sumado gaar ah oo lagu garanayaa dee waa wax aad u muhiim ah weeye. runtii waxaad ogaanaysaa inay yihiin wax aad u muhiim ah. Sidaa darteed loogada waxaan kusoo qeexaynaa oo aynu kusoo summarize garaynaynaa inay tahay waa sumad gaar ah ama waa calaamad gaar ah oo lagu garanayo company meel ku yaal organization wuxuu doona ahaadee taas oo ka caawinaysa meeshan in lagu aqoonsado. intaasuu qeexayaa qoraalka yar halka ku yaala intaasun buu conceptiga ku jiraa yahay. haddaynu intaa ka gudubno waxaan u gelaynaa bal qaybaha kale nu gudbayna. halkan waxaa ku arkaysaa iyadana types of logo noocyada loogooyinkan doonaya iyadana inaad ogaataan. noocyooyinka loogooyinka waxaa ugu horeeya lettermark mid la yiraahdo jirta waxaa jirta mid la yiraahdo wordmark magaca kale loo yaqaan waxaa la yiraahdaa logotype mid kale jirto la yiraahdo emblem logo mid kale jirta waxaa la yiraahdo combination mark. maxay ku kala duwan yihiin hadaba? lettermark iyadu tusaale ahaan halkan saa ka arkaysaan haddaan idiin soo dhaweeyo lettermark loogooyinkan baa lagu gartaa inta badan. lettermark haddaba maxay tahay? lettermark waa loogooyin ka kooban xarfay ka kooban yihiin xaraf bay ka koobanta. For example xarafka H, xarafka M, xarafka N, xarafka X,
ama laba xaraf oo kale meelaha weeye. For example kale tusaale ahaan sida halkan logooyinka halkan ku yaala CNN waa warbaahin waa telefishin caalami ah oo laga leeyahay caalamka kaas oo soo gudbiyay wararka waaweyn. sidaa darteed telefishinkan waa telefishin caalami ah CNN baa la yiraahdaa news oo warbaahin caalami ah oo Mareykan laga leeyahay saan filayo. logodooda maxaa lagu garanayaa CNN waa idinka arkaya. HB iyaduna waa another logo kale oo ay leedahay shirkadda soo saarta kombiyuutarada iyo laptobyada iyo kombiyuutarada iyo waxa HP. sidaa darteed logooyinkaas oo dhan maxay ka kooban yihiin letters bay ka kooban yihiin xarfay ka kooban yihiin saa halkaa ka arkaysaa. okay nooca labaad waxa la yiraahdaa wordmark magaca kale loo yaqaan waxa la yiraahdaa logotype. iyaduna waxay ka iyaduna tusaalahooda kuwan baa idinku filan oo shirkadda Coca-Cola waa shirkad soo saarta sharaabada. shirkadda Google labada shirkadoodba waa laba logooyinkoodu waa maxay waa wordmark waa erayo word waa eray. sidaa darteed erayo isku tegay ayaa wax macna sameynaya ah. sidaa darteed halkaana taana waad fahanteen. okay ta saddexaad waxa la yiraahdaa emblem logo inta badan waa logooyinkan u samaysan qaabka circle-ka iyo shapeska la isticmaalayo shapes qaarkood circle yihiin qaar rectangle loo isticmaalayo waxyaabaha. halkan oo kale waxa ka aragtaan noocyooyin logo oo ay ka mid yihiin sports logo noocyadan ciyaarahan kooxahan caalamiga ee kubadda ciyaara sida for example Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City waxyaabahaas oo dhan halka ku yaala. okay combination mark oo ta ugu dambaysan soo qaadan doono iyadana combination mark iyadana waxa weeye waa shape iyo word mark word isku tegay ayaa iyaguna noqonaya combination. sida halka ba ku arkaysaan Puma iyaduna waa shirkad noocaas ah. Amazon shirkadda la yiraahdo shirkadahaas oo dhan iyo qaar kale badan ayaa logooyinkooda. okay halka marka waxa ka fahmaysaan noocyada logooyinku ay qaybsamaan iyo mid kasta waxay kale kaga duwan tahay iyo difference-ga u dhaxeeya in halkana aad ku fahanteen. way intaasna hadaba ku soo gabagabeynayna theory-giira koobnaa ee kaga hadlaynay logada waxay tahay. inta kadib waxaan u gali doonaa oo qaybteena xigta practical-kii baynu gali doonaa. marka waxaanu sameyn doonaa bal ilaa 3 logo ilaa 4 logo aynu sameyn doonaa oo aynu kaga afarta logona waxaanu kaga hadli doonaa qura ka sameyn doonaa letter mark iyo combination mark. letter mark iyo combination mark ayaa aynu sameyn doonaa insha Allah taala. inta kalena bal idinku hadhow isku daya oo idinkuna soo sameeya waynu bilaabi doonaa insha Allah taala. okay ugu horeyn waxaad soo kicisanaysaa application-ka la yiraahdo seen horeba idinku sheegay waxaanu ku design gareyn doonaa logooyinka. application-kan la yiraahdo Adobe Illustrator waa application aad u fiican oo lagu design gareeyo logooyinka iyo designada kala duwan ee jiro dhan. hadday tahay border wax walba lagu design gareyn karaa. sidaa darteed kanaynu ku design gareyn doonaa kana soo kicisanaysaa haddaanu kugu jirinna oo dee computerka haddaanu kugu jirin ama laptopka internetka kala soo degaysaa waxaad kala soo degaysaa horena waan idinku sheegay linkigiisana description-kan idinku soo sheegayaa get into PC website-ka la yiraahdo ayaad kala soo degi kartaan. halkaas isagay software kastoo uga baahan tahay website-kaas aad kala soo degaysaan get into PC la yiraahdo. okay waynu bilaabi doonaa. okay daaqad noocaynu akhyaarta ku xidhanay waxaanu sameyn doonaa logooyinkan horteena idinka muuqda ayaa aynu sameyn doonaa oo design gareyn doonaa. logooyinkani waxay ka kooban yihiin laba qaybood baynu logooyinkan design gareyn doonaa laba u qaybsami doonaan. noocan ugu soo horeeya waxa la yiraahdaa letter mark logo ayaynu sameyn doonaa. letter mark logadaas oo taa ugu horeysa ka kooban tahay shape iyo letter ay ka kooban tahay. okay iyo tan labaad oo iyaduna ah qaybtan labaad oo iyaduna ah maxay combination mark. wanigi ku yiri logooyinkan sameyn doonaa labadaas bay noqon doonaan combination-ka iyo letter mark. okay waynu bilaabi doonaa si fiican ha loola socdo. waxaad soo furaysaa daaqad cusub baad furanaysaa ama documenti cusub waraaq cusub noo samey baan leenahay. waxaad taabanaysaa shortcut-ka control iyo n markaan taabano daaqadan baa kuusoo boodaysa. haddaad si kalena waa lagu soo kicin karaa oo halkaa file menu-ga intaad taabato ayaad file taabanay dabeetana waxaad ka dooranaysaa halkaa ugu sarreysa oo ah
control iyo click baa taabanay dabadeetana daaqadan baa kusoo baxaysa waa labada habba waa loo isticmaali karaa laakiin iminka shortcut kan isticmaali doonaa oo shortcut wax muhiim ah weeye inaad barato control iyo baa taabanana dabadeetana A4 taasan dooranaa A4 baynu dooranaynaa insha Allah nooca uu ina siiyay bahalkan u deysanana okay create baan leenahay landscape-na waad ka dhiganaysaa oo jiifinaysaa dabeetana waxaad leedahay maxay qaabkaas aad u dhigaysaa waraaq A4 tan baa inoo soo bixi doonta kuwan aan ku design gareyn doonaa hadaba waxa aynu hadaba khiyaar design gareyn doonaa maxay noqonayaan logooyinkan ayaa ay noqonayaan ugu horeyn waxaan ku horeynaynaa letter magan baynu ku horeynaynaa oo aan design gareyn doonaa si fiican oo lala socdo ugu horeyn waxaan soo qaadanaynaa shape baan soo qaadanaynaa la yiraahdo rectangle tool halkaas aan saa ugu jeexayaa halka marka saa ugu jeexo colorka waa ka bedelayaa nooca colorka uu yahay baan ka dhiganayaa okay colorka dabeetana waxaanu isticmaali doonaa gradient baan sidoo kale ku daraynaa gradientiga markaan ku darno double click baa taabananaa kaasaynu ka dhigi doonaa kana double click baa taabanaysaa dabadeetana in yar baa saa usoo jiiday sidaa markuu inoo noqdo in yaroo stroke aan ku dari doonaa stroke dhowr hab baa loogu daraa laakiin habkan baynu ku isticmaali karnaa waa yareynaynaa isaanu meesha inooga qabanin ilaa intaasaynu deynaynaa okay waxaanu sameynaynaa rounding baynu ku samayn doonaa rounding haddaad markaa doonaysa inaad ku samayso halkaa yar baa tegaysaa tools tabkan baa tegay tools baan halkan ayaad imanay dabeetana flada direction select tool ayaa dooranay direct selection toolka la yiraahdo dooranaysaa dabeetana markuu ku dooramo halkaa yar baa saa usoo jiidaysaa hoos baa saa ugu jiiday saasa dabeetana ay kugu qalacsamaysaa okay waxaanu ka qaadi doonaa duplicate baynu ku samayn doonaa mid baynu ka samayn doonaa laba baynu ka samayn doonaa okay halkan baynu dhigi doonaa hoos baynu yara jiidaynaa mar walbana waxa waa inay ay ka qalacsamin moogta waa inay siman yihiin waa inay siman tahay waa inay siman tahay okay sida markay noo haato haddana waxaan soo qaadan doonaa ellipse tool kale halka yar ellipse tool yar baynu jeexi doonaa ellipse toolkaas waynu yareynaynaa shift baa isla qabanaysaa si aan kaga qalocsamin waxaanu ka saari doonaa waxa la yiraahdo stroke waa ka saari doonaa 0 baad ka dhigay colorkana waxaad ka dhigi doontaa cadaan okay dabadeetana waxaynu qaadi doonaa waynu qaadi halkaas dhiganaa duplicate kala ka sameyn doonaa isagana halkaas dhigi okay haddana duplicate kala ka sameyn doonaa mid kale ka sameyn doonaa haddana halkan baynu isagana dhigi sidaad arkaysaanba halkaa waxaan ku samaynay inahaas ayaa aynu ku samaynay okay haddaba say saas inoogu hirgasho kan aynu select garaynaynaa kan baynu select ka dooranaynaa waxaan ku samayn doonaa sen baynu soo jiifinaynaa rotation baynu ku samayn doonaa waa jiifinaynaa intaasaynu deynaynaa kana waa jiifinaynaa oo rotation baan ku samayn doonaa waan drag and drop baan ku samayn doonaa waa dhexdaynu dhigaynaa dabeetana sidoo wixii u noqdo maxay x si uu noqdo xagga hoos uu inaga maray shift control iyo baad isla qabanaysaa xagga sare soo mari doonaa dabadeetana inahaas saa ugu deyni dabeetana saad ka arkaysaanba marka ugu horeysa waxaan isla qaban doonaa dragon baalkii baan isla qaban doonaa groupen ka wada dhigi dabadeetana saas ay u jiifinaynaa okay groupen ka dhigi doonaa dabadeetana waxaad ku samaynaysaa rotation baad ku samaynaysaa
rotation ayaad ku samayn doontaa saasaad u jiifinay halkaasaan saa u dhigaynaa dabeetana waanaad la samaysaa mar walbaba inahaasoo kale aynu daynaynaa intaa markaynu u dayno dabeetana group baynu iskaga dhigi doonaa group ii wada dhig baan leeyahay halkaa dabeetana ii dhig okay intaa kadib waxaan samayn doonaa ellipse tool baan soo qaadanaynaa halkaasi ku jeexanaa inagoo isla hayna shifti si aanu inooga qalloocsamin inahaasoo kale aynu daynaynaa kalarka waa ka bedeli doonaa oo kalarka dee waxaan ka dhigi doonaa nooca uu yahay iminka kalarkiisa halkaa maxaa ku aragtaan sidaad arkaysaanba kalarka haddaan soo dhaweeyo kalarkiisu waa noocma ellipse toolka waa like caddaan oo kale sooma saasoo kale ka dhigi doonaa at same time wuxuuna leeyahay maxay roundedna wuu leeyahay oo strokena wuu ku jiraa okay already stroke wuu noo yahay laakiin kalarka umaynu bedeli halkan aan tegi doonaa halkan baad imananaa kalarkaynu ka bedeli doonaa dabeetana isagana waxaanu ka dhigi doonaa intaa inahaasoo kale aynu u dayn doonaa inahaasoo kale aynu dayn doonaa intaa markaynu u dayno sidaan horeba idinku sheegay waynu yarayn doonaa shifti baan isla qaban doonaa waa yaraynaynaa waa soo qaadaynaa dhexdiisaan dhigaynaa dabeetana haddeen wixii aynu soo qaadnay maxaa ku dhacay xagga dambe u maray xagga saraan soo dhigaynaa okay saad arkaysaanba in yar baynu haddana yaraynaynaa waka waa ku hareeraynu ka simi doonaa waka saad arkaysaanba halkan maxaynu ku samaynay waxaynu kaga gudubnay akhyaaray waxaynu kaga gudubnay qaybtaa hore stroga waxaad moodaa inuu aad ugu badan yahay stroga waa yaraynaynaa stroga maxaynu ku samayni waynu yarayni stroga waa yaraynaynaa inahaasoo kale aynu daynaynaa insha allah good si qurux badan baynu u dhisan garaynay sida halkaaba ka arkaysaan maxaynu u dhisan garaynay qaybtaa ugu horeysa waynu soo qaadanaa group baynu iskaga dhigi waxaan leenahay group nooga dhig halkaas saraynu keeni doonaa waa nooc ka mida loogada aynu samaynay iminka noocan aynu samaynay waa nooc ka mida letter mag weeye letter mag looga weeye oo ka kooban xaraf letter iyo shape bay ka kooban tahay okay qaybtii labaad baynu samayn doonaa oo ah qaybtan hoose ee xarafka h baynu iyadana dhisan garayn doonaa si aan u dhisan garayno iyadana waxaan isticmaali doonaa rectangle tool baad halkaa ku jeexanaysaa halkaas asaa ugu jeexay gradient baad ku samaynaysaa oo kalarka waad gradient habbaad u isticmaalay kalarkaasaad ka dhigananaa oo inta ugu badan kaasaynu isku isticmaalanaa dabeetana qaabka markuu inoogu noqdo saa aynu noo noqdo waxaynu ku samayn doonaa wax la yidhaahdo iyadana roundedka ku badin mayno in yar uun baynu si halkaaba ka muuqata halkaa maxaa ku arkaysaan rounded baynu isagana ku samayn doonaa saasaad usoo jiifinaysaa oo keliya qaabkaasoo kale la doonaya ina ka dhigto dabeetana select waa dooranaynaa duplicate baan ka samaynaynaa duplicate ilahaasoo kale nu daynaynaa okay intaa marka aynu samayno halkaasaad ka arkaysaanba wuxuu leeyahay shape yaroo kaloo caddaan oo dhexda kaga jirta sida kaa hore oo kale iyadana waynu samayn doonaa ellipse tool baa soo qaadanaysaa sidaanu shift baa isla qabanaysaa ilaa intaasoo kale nu daynaynaa stroga waa ka saari doonaa stroga zero baan ka dhigi doonaa colorkana waa ka bedeli doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa caddaan okay waynu qaadi doonaa halkaasaan dhiganaa in yar baynu yarayn doonaa
shift baa isla qabanay exactly dhexda digaysaa dabeetana wakaa waa soo qaadanaysaa xabad kale oo duplicate ka samayn doonaa halkan hoos xagga dhaxan keenna iyadana xabad kale ka samayn doonaa tan kale u dhigaynaa xabad kale ka samayn doonaa xagga sare u geenina halka saad ku aragtaanba waa aynu sameynay okay waxay noo hadhay qaybta dhexe iyadana noo hadhay waxaan soo qaadanaynaa xabad kale oo rectangle tool ah dhexdeena saa ugu yar jeexanaa inahaas oo kale ka dhigi doonaa inahaas oo kale ka dhigi doonaa colorka waa ka bedeli doonaa oo waxaan ka dhigi doonaa nooca gradientigan ku samayn doonaa tanna waxaanu ku samayn doonaa iyadana saasaan ka dhigi doonaa stroke baynu raacinaynaa stroke baa aad raacinay ilaa intaasaynu iskaga deenaynaa intaasaynu ku deenaynaa rounded baynu ku samayn doonaa oo saasaynu ka dhigi waxaan doonan doonaa movement baynu ku qaadi doonaa halkaasaan dhiganaa waynu yarayn doonaa in yar baynu yarayn doonaa adoo shift isla haya in yar baa saa soo yar qaaday okay saad arkaysaama maxaad aragtaan waa inaga kaana design garaynay ee sidiisa u design garaynay okay waynu design garaynay waxaanu isla samayn doonaa group baynu kaga wada dhigi waxaan leenahay group iga dhig dabadeetana shift anoo isla haya baan yaraynayaa waan soo qaadi doonaa halkan baan dhigi okay halkaa akhyaaray maxaad ku aragtaan laba design garayn inaynu laba design garaynay labadaas aynu imika design garaynay qaybtan baynu iyadana u gudbaynaa oo iyadana aynu design garaynaynaa si fiican oo loola socdo waxaan ugu horeyn iyadana waxaanu samayn doonaa shay baynu soo qaadan doonaa waxaan soo qaadan doonaa rectangle tool halkaasaan ku jeexanaa dabadeetana saasuu inoo yahay waa okay weeyi sa halka ka arkaysaan iyada laguma daro iyo wax la yidhahdo rounded sidiidaasaad u deynaysaa colorkaana waa inuu ku ahaadaa oo colorka waa ka bedeli doonaayo in yaroo waxaanu raacin doonaa midabka colorka noocaas oo kalea baynu ku dari gradientigaad imananaa okay gradientigaad imanaysaa halkaasaan furi doonaa in yaroo waxaanu ku dari midabkan oo kalea wakaa dabeetana in yar baynu saa u jiidanaa wakaa midabkaas oo kale ka dhigi doonaa waayo midabkaasa la rabaa in loo ekaysiyo isku midab baynu rabnaa inaan ka dhigno isku color waad aragtaan saas oo kale inoo noqday isla kanun baynu duplicate ku samayn doonaa oo aynu xabad kalena ka qaadan doonaa altaad leedahay ilaa intaa spaceka ay isku jiraan xabad kalena ka samee okay intaasoo kale markay isku jiraan dabeetana waa saddexdaas xabad kale oo haddana rectangle tool soo qaadanaysaa dushaad ka saaray dushaad saa uga saaraysaa colorka waad ka bedelay like for example kaasoo kale aad ka dhigaysaa stroke waad ka masaxaysaa tan oo no stroke baa lagama baahni intaa markaad samayso waxaynu ku samayn doonaa rotation baynu ku samayn doonaa oo maxaynu isticmaali qaabkan baynu ka dhigi saa halkaa ka aragtaan qaabkaasaynu ka dhigi doonaa intaa markuu inoo noqdo uu qaabkaa inoo noqdo waxaynu ku samayn doonaa waynu select garaynaynaa dhammaantood dabadeetana waxaynu leenahay maxay pathfinderkan iman doonaa pathfinderkaasi waa muhiim pathfinderkaasaynu isticmaali doonaa pathfinderku haddii uu kaa xidhay oo halkan aan kugu jirin windowska tegaysaa tigtaa soo saaraysanaysa halkaa ugu dambaysa ayaa tegi doontaa oo halkana laga maamulaa dhammaan tooliska oo dhan halkaasaad kasoo dooranaysa waayahay markaa saa u tagno pathfinderka kaa ugu shisheeya ee la yidhaahdo exclude baynu ku samayn doonaa shortikadna uu leeyahay alta minus click baad taaban doontaa saasaad ugu jaray
halkaa waxaad ka arkaysaan inuu go'ay. Okay, dabeetana intaan hoose baynu iska soo qaaday, halkan dhaxan dhigeenin waynu iska jaraynaa. dabeetana waxaan leenahay delete. halkaa maxay noogu soo hadhay akhyaaray? waxay noogu soo hadhay intii aynu doonaynay. intii aynu doonaynay baa noogu soo hadhay. dabadeetana waxaanu ka dhigi doonaa colorkeennii dabadeetana stroke baan ku dari doonaa. okay, kaana akhyaaray waynaga design garaynay oo saad halka ka arkaysaan waxaad aragtaan inaynu kaana design garaynay. kaana waan design garaynay. highlight baad leedahay, waxaad leedahay group iga dhig. group buu inoo yahay, waynu qaadi doonaa, halkaasaan dhigi doonaa isagana. halkaasaan dhigi doonaa. okay, haddaba text baynu isagna soo qaadan doonaa. text baynu ku dari. waxaan leenahay add text. textiga for example oo kale waxaa ku qoran textigiisa sida arkaysaanba wireless ink baynu tusaale ahaan oo kale u bixinay. waxaan leenahay wireless ink. size-kaynu weyneyn doonaa. size-ka halkan baad ka weyneynay. okay, capital letter baynu ka dhigi doonaa. waa ka capital letter inoo noqday. waan soo qaadi doonaa. halkan baan dhigi. hortiisaasaynu dhigi doonaa. nooca farta aynu isticmaalay baynu qaadan doonaa. farta aynu isticmaalay waa nooca. waxaan leenahay copy. isla kan baynu iman doonaa. waynu highlight garayni. halkaana waynu ka qaadiyo waxaanu ka dhigi doonaa noocan aynu soo qaadanay. saasaynu ka dhigi doonaa. dabadeetana waxaynu samayn doonaa fartaynu yareyn doonaa oo ilaa intaasoo kale ayaa aynu u dhigi doonaa. at same time in yaroo sarana waa wayna qaadaynaa. intaasoo kale aynu deenaynaa. dabadeetana halkan baynu dhigi. colorka waynu ka bedeli doonaa oo loogada saad arkaysaanba qoraalkeeda qaybtaasi maxay tahay? waa blue. blue baynu ka dhigi doonaa. halkan baynu furi doonaa. midabkaasoo kale aynu deenaynaa. weliba waa ka bedeli doonaa. saan maranayo nooca weeyi. okay, saasoo kale aynu deeni doonaa. saad arkaysaanba waa idinkaa aynu hagaajinay. qaybta halkaasaan kaga bixi doonaa. waxaynu u geli doonaa hal qayb baa iyadana inoo hadhay oo saad arkaysaanba qaybtan loogadan kale ayaa inoo hadhay. iyadana waxaan soo qaadan doonaa. iyadana waxaanu isticmaali doonaa ellipse tool. shift baad isla qabanaysaa, saasaad ugu jeexaysaa. marka saa ugu jeexdo mid kaleba sawiri mayne, tan baynu duplicate ka qaadan doonaa, copy ka qaadan doonaa. altaad isla qabanay. xabad kalena dhexdeed keeni. taana in yar baad saa ugu hortayda marinay. tanna dhexdeed keenaysaa. tanna sareynu yara qaadi doonaa. dabadeetana colorkaynu ka bedeli doonaa. tan tusaale ahaan oo kale color horta marka ugu horeysa waxaanu ku samayn doonaa. waan unite garaynaynaa. unit pathfinderkaad iman doontaa. halkaa unite baad ku dhufanay. dabeetana waxay isku noqdeen. marka hore maxay ahaayeen? kala shapes kala duwan bay ahaayeen oo mid kastaa madax bannaan yahay. imika waxay isku noqonayaan hal shape bay isku noqonayaan. oo haddaynu imika colorka ka bedelo eega wada casaan bay noqonayaan. wada bahalkaasay noqonayaan. laakiin marka hore way kala madax bannaanaayeen. okay, sidaa darteed colorka noocu inoo yahay baynu eegi. colorkaas inoo yahay. waxaanu furi doonaa halkan.
gradient baan ku dari doonaa. Okay, gradient-ga qaybtan dhaca u yara cadda ku jira. Okay, gradient-ga soo furay doontaa halkan baad imanay waxa aad ku sameynaysaa in yaro midabkaas kana waxaad ka dhigi doontaa maxay kaasa dabeetana in yar aad saa ugu jiidaysaa inahaasoo kale aad u dayni in yaro strogna waa ku dari doonaa oo ilaa strogana 10 baad gaarsiinaysaa 10 ilaa 10 baad ka dhigay size-kiisa. Then intaa marka aan samayno already hadafkeenu ka doonayna waa inaga ka helay waliba stroga waan ku badinaynaa oo halkan baad kaga badin kartaa inahaasoo kale nu daynaynaa intaasaynu daynaynaa. Okay, dabeetana waxaynu ku samayn doonaa waan shift masla qaban doonaa waan yareynaynaa size-kiisa ilaa intaasnu ka dhigi doonaa waan soo qaadi doonaa halkan baan dhigi doonaa text baan ku dari doonaa kaasoo meel duplicate ka soo qaadan doonaa halkan hoose keeni halkan hoose saa markaan u keeno fartin ka bedelin doonaa oo noocan ka dhiganay baynu soo qaadan doonaa. Okay, sidaad arkaysaan ba isagina waynaga ku darnay fartiisi isagana waynaga ku darnay iyo textigii halkaa waxaad aragtaan akhyaaray inaynu isku dhamaynay oo aynu design garaynay sida halkaa ba arkaysaan waxaanu design garaynay oo qaabaynay afarta logo oo aynu qaadanaynay maanta afarta logo laba aynu qaadanaynay labana ay ahaayeen letter mag logo labana ay ahaayeen combination mag si qurux badan baynu design garaynay. waxay noo hadhay hal qayb bay noo hadhay oo ah sidee haddaba loogu sameeyaa wax la yidhaahdo ellipse tool sidee baa lagu daro qaab kaloo kalena looga dhigaa. ugu horreyn waxaan ku dari doonaa halkan baynu nooca halkan baan ku A4 tire baynu ku dari doonaa background rectangle tool baan soo qaadan doonaa waynu ku jeex halkaas saa u jeexaysaa waad leekaysiinaysaa dabeetana markaas aad u leekaysiiso nooca uu yahay baad ka dhiganay noocu yahay baad ka dhiganaysaa noocu yahay for example gradient baad soo qaadanaysaa waxaad ka dhiganaysaa nooca iyadana waxaad ka dhigan doontaa nooca qaabka markuu inoogu noqdo waxaan leenahay saanu iga dhaqdhaqaaqin waxaan leenahay qafil baad ku xidhay qafil baad iskaga xidhaysaa qafil baad ku xidhay qafil baynu ku xidhay imika ma dhaqdhaqaaqi karo haddaynu imikaas noo dhaqaajiya okay ellipse tool baad soo qaadanaysaa dabeetana qaabkaasaad ugu samayn doontaa oo isla kaasaan sawiraynaa centerkaad saa u dhigi doontaa centerka markaad saa u dhigto aad tiraahdo centerka ii dhig already centerkii buu inoo yaalaa dabeetana waxaan soo qaadan doonaa kan baynu soo qaadi oo aynu duplicate ka samayni duplicate baynu ka qaadan doonaa xabad kale ka qaadan doonaa dhexdaynu dhigi doonaa dhexda markaynu saa u dhigno waxaan xagga dambe u yaalaa waxaan leenahay shift plus okay dabeetana inagoo shift isla haynaynu soo jiidaynaa kana waa ku jiidaynaa waka saad arkaysaan maxaad halkaa ku aragtaan inaa aynu ku apply garaynay ayaa aad aragtaan inaha marka aynu samayno in yar waliba saa u dayno qaabkaa u dayno waxaan ku samayn doonaa sidaad arkaysaan noocaas oo kale ka dhigi doonaa dabadeetana sidaynu saa ugu samayno waxaanu ku tegi doonaa halkan gradient baan tegi doonaa waxaan leenahay waxaad iga dhigtaa nooca ugu dambeeya iga dhig at same time colorkana iga bedel oo waxaad ka dhigtaa nooca kana okay waa kaas si fiican noogu qaabeeyey sidaad arkaysaan ba akhyaaray maxayna loo sameeyey markii kalena waa inaga design garaynay oo sidaad halkaa ka aragtaanba maxayna tii kalena waa inaga design garaynay iyadana aynu apply garaynay sidaad halkaaba ka arkaysaan sidaad halkaaba ka arkataan iyadana qaabkaas oo kale ayaa loo sameeyaa inahaas ayaynu maanta kusoo gabagabaynaynaa idinkuna waxaa loo baahan yahay idinkuna inaad practice garaysaan waxan oo loogooyin kuwan iyo kuwo kaleba aad samaysaan
oo isku daydaan oo cilmigu waa practicalka design garaysaan oo designka aad iskaga saxdaan. inahaasan maanta ugu talagalay inaan idinla wadaago. halkaasaynu kusoo gabagabayn doonaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. nabadgelyo.